haddaba waxaa stuudiyaha nagu soo booqday oo nagula sugan abwaan maki xaaji banaadir oo aad wada taqaanaan isagoo markaasi ka tacsiyeedeynaya geerida marxuum abwaan maxamed cabdulaahi ciise sangub abwaan horta marka ugu horeysa soo dhawow waa dhawaay waa mahadsantahay marka xigta bal tacsiyadaadii sida aad gudbin lahayd iyo waxyaabaha aad ku xasuusato abwaanka maadaama dad muddo badan soo wada shaqeynaya aad aheedeen bal hore u gudgal inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto walaalkeenna weynaankeenna macallinkeenna abwaankeenna marxuum maxamuud cabdulaahi ciise sangub dhammaan abwaaniinta afka soomaaliga wax ku curiya meel walbo dunida guudkeeda ka joogaan gudaha iyo dibaddaba dhammaan hobolada soomaaliyeed dhammaan ummadda soomaaliyeed dhammaan ehelkiisa oo innagaba aan ka kownahay walaalihiisa qaraawadiisa oo dhammaantood innagaba 1 iyo 2 aan ka nahay gaar ahaan qoyskiisa caruurtiisa meel walbo dunida guudkeeda ka joogaan waxaan leenahay aabe ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo samir iyo iimaan rabbi ha naga wada siiyo jannatul firdowsa ilaahay ha nagu wada kulmiyo marxuum abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sangub haddii aan la shaqeynteena wada shaqeynteena iyo taariikhdiisa horta taariikhdiisa waxaa aad u lafaguray si cad u kala dhigdhigay abwaaniin fanaaniin afmaalo gudaha dalka iyo dunida dacladeeda ku kala sugan ayaa ka hadlay waxaan raacinaa abwaanka ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye marxuum maxamuud cabdulaahi ciise sangub ma ahayn inta aan ka naqaano ku naqaano ma ahayn abwaaniinta soo baxaya u hanweyn inay ka mid noqdaan abwaaniinta hadduuba ilaahay u qadiraayo ma ahayn qof xaqira ma ahayn qof aan jeclayn in waqti la siiyo ma ahayn qof aan jeclayn in qof jecel in la caburiyo ma ahayn markuu arko qofka inuu ilaahay amarkiisa abwaanba yahay ama noqon doono gacmo furan qalbi furan laab furan oraah macaan ayuu ku soo dhaweyn jiray naxariistii janno rabbi ha ka waraabiyo abwaankeenii macalinkeenii walaalkeenii wehelkeenii saaxiibkeenii tolkeenii marxuum anigoo dhan buu naga geeriyooday abwaanka isaga ilaahay ha u naxariisto abwaaniinta noolna ilaahay ha u naxariisto isaga waaba naga tegeyba meeshii saxda ahayd oo loo wada socday ayuu tegey laakiin waxaa u baqaa fanaani abwaaniinta nool afmaalada nool siday noqon doonaan xaaladooda way wanaagsanaan doontaa insha allah waxaa naga oohinayaa jira waxaa naga oohinayaa jira oo badan oo dhan ka hadli karin laakiin walaalkeena sabir iimaan ilaahay hana siiyo bacdigiisna ilaahay mana fidneeyo haddaan nahay abwaaniinta soomaaliyeed wixiina dhibaayo ilaahay hanaga hor dhaqaajiyo maku inkaartamayno ma inkaartamayno dalkeena iyo dadkeena waa u daceheena laakiin dadkeena caqliga ilaahay ha u toosiyo qiimaha sharafta
tixgelinta sharafta uu ku fadhiyo abwaanka Soomaaliyeed ilaahay ha tuso inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun abwaanka aad u qiirooday marka Allah u naxariisto abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangub oo marka maalnimadii shalay ku geeriyooday magaalada Addis Ababa dalkaasi Ethiopia abwaane hadii aadan ku sii darsan karin oo maadaama qiiro badan ku waa ku darsan karaa khiira aan la hadli karin ima hayso khiiro oo igu khasbayso ina aamuso ima hayso imana qaban doonto aslan abwaaniinta Soomaaliyeed ku abtirsada ima qaban doonto ima soo mari doono culeys iga nixiya ama wilwal igeliya insha Allah ta'ala ma iman doono marka waxyaabaha lagu xasuusan doono maxay kula noqonayaan adiga maxay ku muuqataa laga ma sheekay karo waxaan ku iri macallin waa badan yahay hal khaf ma aha macallin waa badan yahay waa tuurin yahay waa barakeysan yahay marka ustaadka Allah u naxariisto marxuumka saan ku sheegi waay abwaaniinta soo hareen oo fara ku tiriska kana nolosha ilaahay oo naxariisto marka abwaaniinta da'da yar oo rajooyinka leh maxaa kula talinaysaa oo isaga la xiriira inay ku daydaan oo tallaabadii isaga qaaday horumaradii uu sameeyay si lagu xasuusan karo wadaniyadii ka muuqatay abwaanka iyo riwaayadihii waaweynaa ibrahimiyaadka golaha murtida lagu soo bandhigi jiray bal in saas oo kale ay noqdaan maadaama tiyaatarkiina dib loo casriyeynayo bal iyaga maxaa leeyahay waa mahadsantahay horta ta'liifta hiwa ilaahay uu bixi waay iskoolna lagama barto ergana leeskuma siiyo suuqna mataalo lagama iibsado tan ta'liifta horta waxaan leeyahay mu'allifiinta hadda soo baxayaan ha iska ilaaliyaan wadooyinka ay marayaan markay wax dhisayaan ha ku dadaalaan saddex difaacooda iyo ilaalintooda diintooda dadkooda iyo dalkooda Allah u naxariisto ee boogeena walaalkeena insha Allah ta'ala abwaaniinta xanuunsan fanaaniinta xanuunsan kuwa tabcaanka kuwa tabcaan xigeenka kuwa sakaraadka kuwa sakaraad xigeenka kuwa sakaraad saddexaadka kuwa lamaadka kuwa koowaadka ilgaara haloo lahaado ka warqab haloo lahaado afka uurka gacmaha haloo wada furo afkooday ku nool yihiin yalla cariirinin